isdiidooyin baan isla doonayaa wax isdoonayaan isku diidayaa bal halka aad u faham isdiidooyin yaan isla doonayaa wax isdoonayaan isku diidayaa dacar iyo macaan meel wada degaan wada doonayaa hore aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaan martida bandhigan joogto waxaan si gaar ah u salaamayaa oo soo dhaweynayaa walaalaha martida ah ee naga soo gaaray magaalada Hargeysa ee soo gaaray magaalada Muqdisho waxaan idin leenahay soo dhawaada Muqdisho waa magaaladiini waa dhulkiini waa guryihiini waa minankiini mar raba inaan ku dheeraado maanta oo kale in halkan aan anagu hadallo ka jeedino runtii waxay nagu tahay gaf waxay ahayd inaan barnaamijka oo dhan walaalahayna martida ah siino laakiin waan la barxaynaa caanaha waa la barxaa soo maaha haddii biyo lagu daro markaa barnaamijka waan barxaynaa si qof kasta uu isaga dhex arko maanta halkan dhiirigeliyaal badan baa jooga markaa anugu qolada dhiirigeliyaasha waan ka dhuumanayaa qolada suugaanta ayaan u dhuranayaa oo u dhuumanayaa maaseer baan halkan ka soo jeedin doonaa waqtiga aan haysto ku filan laakiin waxaan rabaa inaan hal qodob oo iyada la xiriira ka hormarsado oo ah dhalinyaro waqtigu waa socdaa waxaa laga yaabaa inaynan dareemayn laakiin maalmahan aan noon lahay iyo sanadahan isbedelaya iyo daqiiqadahan isku biiraya iyo toddobaadyadaan soconaya waqtigeenay ka go-ayaan 10 sano ka hor haddaad dib u fiiriso inteena badan dadka halkan jooga oo filaya inaan dhalinyaro u badan nahay caruur yaryar baan nahay laakiin maanta waxaan u badan nahay dad waaweyn oo tamartii iyo energy-gii ku jiray shalay aan ku jirin beritana noloshu halkan way kasii tamar yaraanaysaa waqtiguna cidhiiri buu sii noqonayaa qodobka markaa aan isku dhiirigelinayna wuxuu yahay isbedel haddaanay noloshu isbedel keenayn inaan noolaana waxba macno ma samaynayso geedaan noqonaynaa abwaankeeni weynaa allah u naxariistee gaariye wuxuu yidhi haddaan guga kuu kordhaa gabow mooye ku tarin garaad iyo waaya arag ilaan wax ma dhaantid geed waa sidaas oo kale markaa maasaan halkan ku haya magaceeda darsiga nolosha la yiraahdaa waxay ka waramaysaa koriinkii shakhsiyadeed ee igu dhacay iyo sida nolosha aan wax uga bartay daadan ii kortaa duruus ii dhigto waxaan diidayaa dood iyo isjiid diihaalka iyo duruufahaad adag dadaal iyo rajaan la dul joogayaa dabin laydhigiyo shalay daacadii dubka dhaawacdaan dib u eegayaa dookhayga iyo waxaan doonayaan daba raacayaa danaseega iyo waqti daayacaan ka dagaalamaa degdeg iyo fudayd dalluun igu ridaan iska diidayaa doqonnimo shalay i dullaysataan ka daldoorsadaa qofka iga durkaan iska daynayaa ruuxi daadahshaan dusha saarayaa anoo doog la raba qofka diidayoo shishe ii damqaan u ducaynayaa dabuubtayda iyo hadalkayga dadan kasha doonaysaan u furaa dibnaha damiirkayga iyo diintaydan baa dabar ii ahoo dulmi iyo xadgudub waan diidayaa damaq iyo nugayl doqon iga dhigaan u daraanayaa isdiidooyin baan isla doonayaa wax isdoonayaan isku diidayaa bal halka aad u faham isdiidooyin yaan isla doonayaa wax isdoonayaan isku diidayaa dacar iyo macaan meel wada degaan wada doonayaa qalbi duun jiriyo maan daalayo isdagaashan baan dirirtooda shidan kala daminayaa dubaaq quustay iyo han wax doonayaan la dardaarmayaa hagardaamo iyo waan jir diidayaa waxay dooriyo farxaddayda dila dariiqaan shalay ku dayoobay baan ka durkaa kun jeer eray duurxulaan ku dawaynayaa galdoloola iyo dayacaan tirsado daranyada xiskiyo dusha muuqataan hadba duugayaa dadnimiyo wanaag aan doortay baan ku dakaynayaa darsi aan bartaan boogaha damqada ku dabiibaya ka faa'iideysa qiimo dhimista rasiifarka asal ku shuba $12 oo ah qiimaha 2 bilood rasiifarkuna waa bilaash qiimo dhimistan waxa ay soconaysaa ilaa 6 bisha February ee sanadkan 2023